السلام عليكم وعليكم أحمد موسى maanta waxaan ka hadlo sida renderkaaga ugu dhigi lahayd si dhaqso badan. waxaan rabaa inaan ii sheego inaynan muhiim ahayn marka hore kombiyuutarka haysatid. inkastay fiican tahay in la haysto kombiyuutar xoogaa oo quwad badan laakiin inaynan ahayn laazim inuu kombiyuutarkaaga yahay kombiyuutar leh RTX 3080 ama 3090 Ti. haddaa markan intuu kombiyuutarka aniga isticmaalo waa kombiyuutarkan waa MacBook Air 2017 kombiyuutarkan hooyadii adiidhaan igu keentay 2017 had kombiyuutarkan waxaa la gadaa $500 laakiin markii lii soo gadaa aniga waxaa la gadaayay $1500 la gadaayay. marka kombiyuutarka ma kombiyuutar lagu talagalay in lagu sameeyo renderyaal waxaan renderan sameeyay dhan waxaan ku sameeyay kombiyuutarkaas yar aanan quwad lahayn. haddaa marnay quwadiisa gigabyte badan xataa male gigabyte waa 250 gigabyte oo maxaa la dhihi jiray raamkiisana waa 8 raam. haddana waxaa haystaa dual core 2 core bisa ku jirto meesha kombiyuutarada hadda waaweyn oo socdaan ay leeyihiin ilaa 32 core ama ilaa 16 oo core. hadduu kombiyuutarkaaga GPU-ga ama CPU-ga ay leeyihiin core badan macnaheedu waxay tahay inaad sameyn kartid render si dhaqso badan. marka graphic card-ka haysto waa 1 gigabyte iyo bar. marka hadda inta kombiyuutarka hadda walaalkayga haysto kale hadda walaalkayga waxaa haystaa RTX 3600 waa 12 gigabyte GPU-ga bisa wato maaha raamka kale oo la socdo kombiyuutarkiisa maaha GPU-ga bisa wato 12 meesha aniga ka wata bis leh 1 gigabyte lacagtiisana waa $500 uu ka soo bixiyay. raamka ugu jira kombiyuutarkiisa kalena extradana wuxuu u siiyay 12 gigabyte oo raam ah. haddaan fiirinana maskaxdiisa kombiyuutarka ugu jirtana hadda waxaa ugu jirto mid 1 terabyte ah wuxuu geli karaa ilaa 4 terabyte uu hal kombiyuutar bis geli karaa. marka hadda waxaan sheegaa waxay tahay laazim inaan ahayn kombiyuutarka haysatid ee muhiim tahay waxa ka sameyn kartid. marka adigoo haysatid kombiyuutarkii ugu dambeeyay maanta oo soo baxay adigoo haysatid ala yaab inaad sameysid render aanan fiicnayn haddii loo fiiriyo qof haysto kombiyuutar duq ah ama kombiyuutar aanan fiicnayn. commentigan waxaa ku arkaa dad badan oo dhahaya ma isticmaashid Unreal Engine mustaqbalka Unreal Engine fiican. يعني waxaan rabaa inaan sheego laazim inaad isticmaashid Unreal Engine. hadda lahaan oo kale hadda u baahan inaad soo logalisid Unreal Engine waa free. hadda u baahan inaad soo logalisid waa inuu ka banaan yahay kombiyuutarkaaga 55 gigabyte waa inuu ka banaan yahay kombiyuutarkaaga si aad u logalisatid software-ka bis. iska ilaawba inaad sameysid project-yaal iyo faylal character animation sound design waxaas iska dhaafaa inaad software-ka kaligiis u haysaa 55 gigabyte. marka maanta waxaan u diyaariyay dhowr xabo oo renderyaal aan u diyaariyay 4 render aan sameeyay. soo marka hadda blender render hadii ma taqaan normal ahaan oo kale aniga si aan waqti badan ugu qaadanin setting-ka waxa aaday sample-ka hoostiisa meel ay ku qoran tahay limit time waxaan ka dhigay 1 daqiiqo. sawiraanta aan tus doon dhan waxaan ku sameeyay 1 daqiiqo. haddaan ka bilaawno sawirka ugu horeeyo sawirkan arkusiin haddaan soo dhaweeyo waxa waa wada shucaac waxna kama bedelin waa blender sidoo ku imaaday waa sida markaa furtid file arkaysid. sawirkan kale sidoo ma shucaac badno sababtoo waxaan yareeyay the light bounce nala halkan noo saaran. haddaan file camera aan aado nalkana halkan nal bisa meesha dhan noo shidayo. soo light bounce wuxuu yahay nalka intuu kasoo baxaa marka tusaalahaan oo kale derbiga ku dhacaa derbiga markuu ku dhacna wuxuu ku dhacaa wejiga Susan kadibna wuxuu ku dhacaa derbiga haddana wuxuu ku dhacaa kownkan marar badan oo meelaha kula laabana kadib ay kamerada heli informationkaas. marka halkan light bounce waxaan ka dhigay 4 blender default aan wuxuu yahay 12 marka waxaan ka dhigay 4 diffuse kan waxaan ka dhigay 2 glassless-na waxaan ka dhigay 2 iyadana emission-na waxaan ka dhigay eber transparent waxaan ka dhigay eber. hamar aan sheegay waxay ka leeyihiin 4tan xabaha aan bedelay. haddaan ku hormarno diffuse waa colorka caadiga colorka object kasta leeyahay waa colorka aanan wax la soconin waa colorka sidiisa. soo colorkan meeqa mar uu ku celceliyaa blender si uu uu kaga dhigo color safiix ma fahantay. laakiin maadaama material-giina tahay hal color iswada wato oonan texture badan lahayn labo xataa way naga badan tahay hal ku filnaa. marka ka dhiga 2 ama 3 4 baa isku gaan 4 way badan tahay. glossiness haddaan fiirino glossiness waa meel iftiinka ma taqaanaa u sameynaya highlight-ka. hadda Susan oo kale dhinaceeda kore waa glossiness wuxuu leeyahay waa meel ka yahay oo kale bacbacdo kale uu iftiinka kugu soo celinayo meelahaas la glossy. haddaan fiirino emission waa ever emission waxaa la dhahaa wax oo iftiin sii daynayo. hadda nalkoo kale waa emission laakiin maaha object. hadda haddaan keena meeshan oo kale sphere kana siino color aan siino material aan kadib saarno aan siino emission waa nalka waa object nal leh maadaama aan haysan anaga objectigeena uunan ku jirin wax nal sii daynayo marka waxaan ka dhigay eber aan ka dhigay. marka fiiri projectiga sameynaysid haddii
aanan lahayn object noocaanan oonan sii daynaynin nal eber ka dhig. waxaa lagu qaata adigoo isticmaashid nalalka uu blender la imaado. nalalka blender la imaadaan point light, sun, spotlight iyo area light. kuwaas isticmaal, kuwaasaanan kugu daraynin renderkaagaan ka dhigaynin wax dabaalnimo u badan. transparentna waa waxyaalooyinkan oo transparentiga. hadda oo kale dhaladan oo kale halkaas waxay ka tahay transparent. haddii meeshaas oo kale ay yaali lahayd oo kale uu koob kale yaali lahaa waa arki lahayd maadaama waa transparent. kan ugu dambeeyana waxa renderkiisa looma malayo inuu wax badan isbedelin haddii loo barbardhigo sawirkan. labadan sawir ma keenin wax badan isbedelsan yihiin, laakiin haddii aad si fiican u fiirisid sawirkan ka shucaac yar sababtoo waxaan ka damiyey caustic-an ka damiyey. caustic waxaa la dhahaa haddii ay sidii wax dhale oo kale iftiin uu ka kala geys iftiinka yacni dhinacan kale uu ka baxaa sidooyin hadda sidana arku sidoo kale, laakiin waxay ku xiran tahay dhalada aad isticmaalaysid moogtahay. blender uma baahna sameyso xisaabooyin badan oonan yacni aanad ku caawinaynin moogtahay. waqtigaas ay gelin lahayd caustic-ka yani wuxuu ku siinaa render oo ka shucaac yar haddii loo fiiriyo mid caustic ay daaran tahay. marka waxaa la soo gaaray kan ugu weyn oo yacni dadka badan aynan isticmaalin oo renderka ka dhigayso wax yacni qof professional sameeyey ama uu sameeyey qof oo amateur oo maanta ku cusub blenderka. labadan sawir kan hal shucaac male haddaa fiirisiin, kanna waa wada shucaac miran. labadoodana isku waqti aan ku sameeyey render. kan wax kama bedelin, intaan kuu sheegaya caustic aan ka damiyey. kan wax walbo yacni wax walbo kan yahay uu kana yahay. marka sideen ku helnay render saan u nadiif iyo mid saan u yahay wasaq. waxa keliya aan daaray waxay tahay denoising. haddaan hal mar aan aadno renderka, denoising waxaa ka heli kartaa marka hore waa inaad isticmaashaa cycle. waxaad ka hoos heli kartaa meeshan qoranta viewboard layer. markaad taabatid denoising halkan uu ku yaalaa. marka imaadid wuxuu kusii doonaa afartan shay saan u isticmaalno waa inaan imaanaa add filter denoise. wuxuu ku siinaa notekan denoise la dhaho. noise image waxaa gelinaya imageka. normal waxaa gelin doontaa denoise normal. kadibna denoise albedo waxaa gelinaynaa albedo meesha ku qoran tahay. kadibna imageka waxaan gelinaynaa image. so marka renderka waa inaan ku sameysaa mar labaad render. aad imaataa korkaan dhahdid render. markaad render dhahdid wuxuu kusi doonaa sawir saan u nadiif. marka waa kana yani adigoo wax badan sameynin renderkaaga sidaan u fiican yahay. marka haddaa u baahanta inaad sameysid filin oo kale halkii saac waxaa sameyn kartaa 60 sawir ku dhufo 12 saacadood. yani waa habeenkii dhan computerkaaga wuxuu sameynaa render moogtahay. waxaad sameyn kartaa 720 frame. haddaa habeen kale ku celisid 2 habeen aad sameysid sidaas waxaad haysataa 1440 oo sawiraan yani oo frame. marka haddaad u qaybisid 24 frame yani hadduu ku soconayo 20 frame 24 frame hadduu secondkii yahay waxaa haysataa film soconayo 1 saac. yani renderkaaga dhan wuxuu kugu qaatay 2 habeen. hal habeen oo sabti xad ama khamiisi jumco aanad wax sameynaynin computerkaaga ugu tagi kartaa si u sameeyo renderkan 2 maalin kadibna waxaa haysataa film soconayo 1 saac. yani isticmaal denoisigan noloshaada wuxuu kaaga dhigi doonaa saa'id uu ku dhigi doonaa fudud. kan labaad aan rabnaa ka hadlano waxay tahay waa inay haysataa waxaa fiican inay haysataa blenderka ugu dambeeya mar walba. haddaa fiirsid blender maalin walba waxaa lagu soo daraa wax. blender waxay ka dhigaan cycle ka dhaqsi ka dhigaan. so cycle oo kale waxaa socota hadda cycle x socoto cycle 10 socod maadaama 10 sano kusoo wareegatay cycle markii la sameeyey. marka cycle dhan waxay kasoo bilaabeen every kasoo bilaabeen codeka wax walbo kuwii kasoo bilaabeen si blenderka cusub iyo dadka waxay u baahan yihiin oo loola jaan qaado waxay ka dhigeen marka cycle cusub ay ka dhigeen. marka isticmaal blender 3 ama wixii ka dambeeyey. kan labaad aan rabaa inaan sheego waxay tahay waxyaalooyinka oo ka dhigayo blenderkaaga dhaqsi waxay tahay ha isticmaalin shift d marka rabtid inaad koobiyeysid shay. isticmaal alt d. labadan object ku saadala information kooda waa iskooda mid. halkan ay ku qoran tahay hal date wada isticmaalooyin. iyagoo hal date wada isticmaalayaan ama maxaa la dhihi jiray sii kartaa kan modify u gaare. waxaa sii kartaa array modifier korkor u jiida kadibna waxaa sii kartaa bend. kan waxay haystaa wax gooni ah. kan in halkan imaatid aad sii kartaa bevel smooth ka dhigaa geeso dhan kadibna wave modifier. so hadda labadooda ismidaysid labadan shay ah maxaa la dhihi jiray hal objecti ah mid walba wax gaar uu sameeynayaa. hadda baanta waxaa ku dari kartaa
mirror modifier. So mid walba wax gooni u sameynaa ismadiis labadan objects ku wada mid ah haddaan imaado halkan kan wax ka bedelo kulligood ku wada bedelmaa kan ugu dambe aragnaa ka hadlana waxay tahay particle sawirkan aad arkaysiin halkan iga muuqdo iyo kan kee kula tahay wuxuu qaadan lahaa waqti badan saan u sameeyo render waxaad leedahay kana qaadan lahaa ma ogtahay laakiin taa ku ka waran labadooda kan iyo kan inta dhagax oo kan yaalo uu haysto aan dheh uuna haystaa kan haddii yani aanad lambarka fiirinin halkan hoose ma rumaysanaysid sababtoo waxaad leedahay kan wax yar u haystaa maadaama meelo badan oo aaba banaan kan kalene meel walba wuu buuxaa haddaan ka baxo kamerada view hal mar haddaa caad u arki kartaa haddaan ka fiirino kor kan meel walbo dhagax badana yaalaan kanne meelaha keliya u baahannahay bisa dhagaxyaasha wada yaalaan dhagaxyaashan meelahan yaalaan oo dhan wuxuu naga buuxinaa raamku naga buuxinaa sawirka kuma arkeeno yani waa khasaaro socota moogtahay laakiin haddaan ka fiirino sawirkan kale dhinacana u baahannahay bisa dhagaxyaasha wada yaalaan dhinacan dhan way marantahay wax yaala male kuwan waxaa loo maleeyaa inay saaid uga sigsan yihiin laakiin aamin wax yaala male kamerada wax ka dambeeyo kamerada la siman yihiin markaan dhahno zoom out aa loo maleeya inay wax dhan wada fogfog yihiin laakiin ma fogo so marka saan sidee u samey kartaa waxaa la imaadaa meeshaan object data la imaadaa kadibna waxaa sameynaya group vertex group kadib markaa samaysid vertex group markaa haddaa aadid meesha ay ku qoran tahay weight paint dhinaca u baahan tahay bis colorkan meeshaan haddaa ka dhigtid eber wax dhan uga tirtira haddaa ka dhigtid halne wuxuu ku mooleynaa gaduud number 1 so dhinacaad u baahneen dhan sidaan u tirtir dhinaca u baahneen dhan tirtir haddana mar aado kameradan kale haddana mar imaado objectgan kale kan aanan lahayn wax dhan so kana mar raban inaan igu tuso number 1 aan ka dhigaa halkaas kore weight paintiga kadibna brushkan uu noo yaryahay kadib halkan aan marsandaan u mariyo aan kamerada ka baxo waa kana intaan bis wax ku jira bisaan arkaynaa haddaan shidno wax isma bedelayaan waa inaan imaanaa hoos vertex group aan dhahnaa aan kadib aan imaanaa density aan taabanaa groupka uu noo sameeyey halkan haddaas leedahay waxaan rabaa inaan ku sameeyo ev oo kale so waxaan ku dhihi lahaa waxaad sugtaa ev next hadda cycle waxaa kusoo dhigatay 10 sano saas daraadeed waxay sameeyeen cycle x ay sameeyeen evne maxaa la dhihi jiray waxaa soo socdo ev next ev number 2 soo socoto waa kan haddaa baanta inaa akhrisid linkikan hoosaan dhigi doonaa meel dhinaca hoose ka akhri so marka maalintaas ay ahayd waxaan rajeynayaa inay caawisintaan insha allah videoga soo socdaan isku arki doonaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum